wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya mudane injineer Cabdulaahi Abuukar Xaaji ayaa xalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku soo xiray shirkii looga hadlayay horumarinta waxbarashada Soomaaliya oo ay martigelisay wasaaradda waxbarashada Jubbaland. Xiritaanka shirkan ayaa waxaa xaadir ahaa dhammaan wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada, wasiiru dowlayaasha, agaasimayaal iyo la taliyayaal waxbarasho oo ka kala socday gobolka Banaadir iyo shanta dowlad goboleed. Intii ay socotay xafladda xiritaanka ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdinaasir Seeraar Maax iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha waxbarashada waxa ay hadiyado guddoonsiiyeen martida ka kala socotay wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdinaasir Seeraar Maax oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in farxad weyn ay u tahay in shirka uu si nabadgelyo leh ugu soo dhamaaday. runtii annaga farxad bay noo tahay in shirkii Kismaayo oo socday 4 beri si nabadgelyo ah inoogu dhamaado. waxay noo tahay runtii farxad weyn. waxaan leenahay soo dhawaada magaalada Kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka runtii ugu amni fiican inta hadda aan garanayo dhibaato kama jirto. waan jecelahay martida heer dowlad goboleed ha noqdaan isteediyada runtii si fiican baa loo soo dhaweeyaa. dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya mudane injineer Cabdulaahi Abuukar ayaa wasaaradda waxbarashada Jubbaland uga mahadceliyay hogaamintii wanaagsaneed iyo abaabulkii ay sameeyeen. tahadu taxabu xadiiskaas ayay ku fadhidaa waxay shaqada maanta ay qabteen in wax la soo hadiyeeyo si la soo jeclaado. waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka kale inay ku dayan doonaan insha Allah taala. mar labaad mar saddexaad waa idin mahadcelinaynaa. jazaakumullahu khayran. abaabulkii shirka iyo dhabar adeegii iyo hogaamintii wanaagsaneyd wasiir Seeraar oo mar walbaba wixii khilaafaad waxaas sida in la saxo aad ugu dadaalayay. kulli waa ugu mahadcelinaynaa. annagana kulli waxaan diyaar u nahay in aan sii wadno aanan ka caajisin ilaa goolka aan u soconno aan ka gaarayno inta aan joogno. markii ay dhamaatay xafladda ayaa waxa ay wasiiradu soo saareen warmurtiyeed ka soo baxay shirka waxaana warmurtiyeedka u aqriyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya mudane Maxamed Caabi Xasan. iyadoo laga ambaqaadayo waajibaadka dastuuriga ee xaq u siinaya muwaadin kasta helitaanka waxbarasho tayo leh ayaa shirkii labaad ay isugu yimaadaan wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxa uu ka qabsamay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. shirkaas oo socday intii u dhaxaysay 28 November ilaa 1 bisha December. waxaa galuhu oo dood ka yeeshay dhismaha laba guddi oo muhiim u ah bahda waxbarashada iyo waxbarashada Soomaaliyeed guud ahaan. labadaas golo oo kala noqonaya golaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaran iyo golaha manaahiijta ama soo horumarinta manaahiijta qaranka. labadaas gole oo mid kasta uu noqon doono laba gole oo ka madax bannaan wasaaradaha waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir. waxa ay ka shaqayn doonaan ama ay shaqadooda u gudan doonaan si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda iyo halbeegyada u gaarka ah ee u yaala. waxaa halka lagu heshiiyey dhammaan qodobada iyo waajibaadka ay guddiyadu ay yeelan doonaan oo insha Allah taala si gaar ah loogu xusay is-afgarad dhex maray dhammaan wasaaradda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. heshiiskaas oo lagu saxiixay magaalada Kismaayo.